Tobanaan kun oo qof ayaa la filayaa in ay isugu soo baxaan banaanbax looga soo horjeedo Yuhuud nacaybka magaalada Paris. Laakiin waxaa la rabay in ay calaamad u noqdaan midnimada ayaa horay u dhaliyay khilaaf siyaasadeed oo baaxad leh. Yuhuuda ku nool Faransiiska waxay dareemeen cidlo iyo in la dayacay, sida uu sheegay guddoomiyaha ururada Yuhuudda ee Faransiiska, Jonathan Arfi, toddobaadkan. Socodka weyn ee lagaga soo horjeedo Yuhuud nacaybka ayaa rajaynaya inuu xaliyo dareenkan kelinimada ah. Wuxuuna intaas ku daray, Faransiiska Yuhuudda waxay dareemayaan inay la kulmayaan go'aan muhiim ah, wakhti taariikhi ah oo jiritaankooda oo dhan ah Faransiiska. Mudaharaadka ka dhacay Paris waxaa ka diiwaan gashan madaxweynaha baarlamaanka qaranka Yael Braun-Pivet oo ka socda xisbiga talada haya ee Renaissance iyo madaxweynaha Senetka Gerard Larcher oo ka socda xisbiga muxaafidka ah ee Les Républicains. Waa inay jirtaa bixitaan. Larcher ayaa dalbaday, Braun-Pivet ayaa ku sharaxay kanaalka TF1 xiisada nacaybka sii kordhaya ee nacaybka Yuhuudda ayaa nagu saameeya. Ma istaagi karno. Taasina waa sababta aan u bilownay wadajirkan. Ficil dhib ku saabsan ka qaybgalayaasha. Laakiin waxaa loogu talagalay calaamad adag oo ah midnimada ka dhanka ah Yuhuud nacaybka ayaa horeba u keenay dood maalmo ka hor. Hogaamiyaha garabka bidix Jean-Luc Mélenchon ayaa dhaleeceeyay hindisaha labada afhayeen ee baarlamaanka. Waxa uu ku qoray platform in tani ay tahay mudaharaadka kuwa shuruud la'aan ku taageeraya xasuuqa Gaza. Waxa uu ku dhawaaqay in xisbigiisa La France Insoumise uusan ka qayb qaadan doonin banaanbaxa, taa beddelkeedana uu diiwaan geliyey banaanbax looga soo horjeedo dagaalka Gaza. Falcelinta xisbiga garabka midig ee ugu weyn ayaa sidoo kale keenaysa doodo kulul. Sababtoo ah Rassemblement National waxay sidoo kale rabaan inay socdaan. Hogaamiyaha kooxda Marine Le Pen ayaa ka sheegtay telefishanka TF1, anigu waan joogi doonaa. Hogaamiyaha xisbiga Jordan Bardella ayaa joogi doona, sidoo kale dhammaan xildhibaanadayada. Afhayeen u hadlay dowladda Olivier Faure ayaa ka hor yimid in garabka midig uusan meelna ku lahayn banaanbaxa. Madaxa Socialists Olivier Faure ayaa u arka si la mid ah, wuxuuna sharaxay in aysan jebin taariikhdii hore ee nacaybka Yuhuudda. Faure waxa uu ka hadlayay waraysi uu madaxa Bardella siiyey telefishanka Binti toddobaadkan. Halka hogaamiyaha xisbiga dada yar ayaa ku luqay markii la weydiiyey in asaasihii xisbigii hore ee Front National Jean-Marie Le Pen uu ahaa antisemite. Xusuusin ahaan, Jean-Marie Le Pen ayaa mar ugu yeertay Holocaust tafatirka taariikhda, waxaana lagu xukumay maxkamad hadallo ka dhan ah Yuhuudda. Sidaas oo ay tahay, Bardella wuu isu keeni waayey inuu ugu yeedho aabbihii aasaasay xisbiga inuu yahay nin Yuhuudiid ah. Markii uu sidaas sameeyey, wuxuu u fidiyey dhaleecayntii Furin, wuxuuna sii huriyey khilaafkii ka dhashay ka qaybgalka ee banaanbaxa. Wakiilada Yuhuudda waxay tuuraan bidixda darafyada. Laakiin qof kastaa ma dhaleeceeyo ka qaybgalka lagu dhawaaqay ee xubnaha. Xisbigu wuxuu oggolaansho ka helay dhammaan dadka. Serge Klarsfeld, qareenka Yuhuudda iyo madaxweynaha ururka hablaha iyo wiilasha Yuhuudda la tarxiilay ee Faransiiska. Klarsfeld ayaa idaacadda Europe ka sheegay in aysan ahayn mid nacayb dhowr sano ah oo ay ku guda jirtay qaabaynta qiyamka jamhuuriyadda. Si kastaba ha ahaatee, waannu ka maarmi karnaa Sionistka iyo Yuhuud nacaybka. Wax walba hadda waxay ku ciyaarayaan gacanta hogaamiyaha kooxda baarlamaanka ee iyo musharaxii hore ee madaxweynaha Marine Le Pen, waxayna lahayd xirfad ay si khushuuc leh ugu dhawaaqdo inay haddii loo baahdo socon doonto dhammaadka banaanbaxa. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa toddobaadkan isku dayay in uu soo bandhigo waxa uu arko in ay yihiin ujeedooyinka xaqdarada ah ee labada xero ee darafyada ah. Waxa uu si dadban ugu eedeeyey hogaamiyaha garabka bidix Mélenchon in uu doonayo in uu naftiisa ugu hambaliyeeyo taageerayaashiisa gudaha bulshada Muslimka ah ee mowqifkiisa mugdiga ah ee nacaybka Yuhuudda. Iyo marka la eego Rassemblement National, Macron wuxuu soo jeediyey iyada oo aan dabcan
la sheegin magaca xisbiga in ujeeddada xagjirinta garabka midig aysan dhab ahaantii ahayn inay taageeraan yuhuudda laakiin inay diidaan muslimiinta. Tirada falalka ka dhanka ah yuhuudda ayaa aad u kordhaysa. Marka la eego kororka degdega ah ee falalka nacaybka yuhuudda tan iyo 7 Oktoobar, Macron wuxuu ka sheegay munaasabad Arbacadii in la weeraro yuhuudi waa in la weeraro jamhuuriyadda. Waxay ku saabsan tahay qoraallada swastika hanjabaad afka ah laakiin sidoo kale weerarada jirka. Wasiirka arrimaha gudaha Darmanin ayaa shaaca ka qaaday in la xiriirta ku dhowaad 2 oo falal nacayb ah oo ka dhan ah yuhuudda dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, in ka badan 5 oo qof ayaa si ku meel gaar ah loo xiray. In ka badan 1 ka mid ah ayaa waayi doona sharciga deganaanshaha, ayuu yidhi Darmanin. Isku darka khatarta ah. Waxaa la isweydiinayaa mudaharaadka ka dhacaya Baris iyo isu soo baxyada badan ee la qorsheeyay ee ka dhacaya dalka in ay keeni doonaan in muwaadiniinta yuhuudda ay dareemaan ammaan mar kale. Xaqiiqdu waxay tahay in garabka midig, garabka bidix iyo muslim nacaybka yuhuuddu ay hadda yihiin isku dhafka sunta ah. Nacaybka Israa'iil iyo yuhuudda ayaa ku baahsan bulshada soo galootiga ah. Madaxa ardayda yuhuudda ee Faransiiska, Samuel Lejoyoux, ayaa u sheegay Art Studio Paris maanta, haddii aad rabto inaad muujiso taageeradaada Israa'iil ee jaamacadda ama si fudud xaqiiqda ah inaad tahay yuhuudi, isla markiiba waa lagu hanjabay oo lagu caayay sidii qof wasakh ah. Zionist, taasi waa xaqiiqadu. Laakiin xiisaddu kama dhex jirto yuhuud iyo muslimiinta oo keliya. Nacaybka yuhuudda waxaa sidoo kale ka faa'iidaysta xisbiyada garabka bidix ee xag jirka ah, kuwaas oo aad ugu sugan jaamacadda. Hadda Faransiiska waxay ku xidhan tahay codadka dhexdhexaadka ah iyo kuwa dhexdhexaadinta sida kan Hassan Jalgumi. Imaamka Dranci ayaa si kulul ugu baaqay dhammaan muslimiinta in ay bannaanbaxa dhigaan maalinta Axadda ah. Tani waxay u tahay socodka bulshada oo dhan. Haddii walaalahayaga yuhuudda ah aysan mar dambe ku dhejin karin kibbah dibadda, taasi waa mid aan sharaf lahayn. Taasina waxay u qalantaa inaan muujinno oo dhammaanteen waddooyinka